shareecada islaamka sal ay uga dhigtay ku xukuntay toddobadan eedaysane ee magacyadoodu kor ku xusan yihiin diyo muqallada ah oo 100 halaad ah oo 40 halaad dhalayso odayaasha iyo maamulka iyo dhammaan korjoogtada eedaysanayaalka dhammaantiin dhageena u fura go'aan galkan waa gal dacwadeed oo ka furmay santarkan Cilaanle 12 bishii 12aad 2023 ayna dacwadayaalka ahaayeen Nuux Faarax Warsame ina Markaba Xasan 43 jir ah degan Barawaal Sahra Maxamed Biixi Luul Ismaaciil Jaamac wakiilu dacwana uu ahaa Cabdullaahi Xaashi Aadan kuna sheegteen marxuum Suldaan Nuux Faarax ina Sahra Maxamed Biixi 20 jir ahaa deganaa Barawaal ku dhintay meel u dhow Barawaal dhintayna taariikhdu markaa ahayd 4 bishii 12aad 2023 kuna sheegtay 7 eedaysane ee kala ah Siciid Cabdi Dhuub Cabdi Xuseen Saacid Cabdi Dhuub Cabdi Xuseen Qooje Cabdi Weli Geyr Cali Jumhur Cali Durwa Xayla Kaynaan Maxamed Cali Durwa Shariif Sheekh Xasan midna ugu sheegtay inuu midigtiisa ku dilay iyo maamulkiisa iyo qori madow oo uu watay kuna dilay si kas ah maalinna dilay sidoo kalena ayakuna dhammaantood sheegay mid u sheegay inuusan dilin mid walba goobtana yimaadeen mid walbana sheegtay inuu qori watay asbaabta xukunka maxkamaddu markay dhageysatay dacwaysanayaasha wakiilka uu yahay Cabdullaahi Xaashi sidoo kalena dhageysatay jawaabta dacwaysanayaasha aragtayna sida ku cad kutubta fiqiga kitaabka nihaayada juskiisa 7 boga 394 sidoo kale kitaabka tuxfaha juskiisa 9 boga 54 sidoo kale kitaabka rawdaha juskiisa 10 boga 13 waxay ku xukuntay 7 eedaysane ee magacyadoodu kor ku xusan yihiin diyad laguna dhaarshay waxay xukuntay maxkamaddu in uu yahay kiiskaanu lowth laguna dhaariyay loona bandhig markuu cadaaday lowthkina loo makaniyay dadkii dhaxlahayay dhaartii qasaamada wayna dhaarteen ayakoo u kala dhaartay sidaan aabbuhu wuxuu dhaartay 28 kitaab hooyaduna 9 kitaab zawjada uu ka dhintayna waxay dhaaratay 13 kitaab 50 kitaab markay mareen waxay maxkamaddu xukun shareecada islaamka sal ay uga dhigtay ku xukuntay 7 eedaysane ee magacyadoodu kor ku xusan yihiin diyo muqallada ah oo 100 halaad ah oo 40 halaad dhalayso sod uu rey tahay 35 jira tahay 34 jira tahay waxayna u xukuntay diyadaas dadka waaridka ah oo dhaxlahayay kuna dhaartay inay dileen sidaa darteed waxaan xukunay magtaas muqalladada ah laguna xukumay 7 nin wabilaahi tawfiiq ciddii aan ku qanacsanayn waxaa u furan si dhib yar kitaabtii waa taallaa mid walba meeshaan ku aragnay waa sheegnay
inay culummadoodii ula laabtaan oo dhahaan barbal maxnoo fiiriya